Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa Council Vice President Jamal Usman of Ward 6. Walaalayaal, waxaan rabaa message inaan usoo gudbiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta magaalada Minneapolis. Waxaan hadda soo tukaday Jimcada, waxaana joogaa Cedar. Waxaa yimid magaalada kana soo degay nin aan wada naqaano oo la dhaho Jack Lane. Ninkaas wax kale aan u soconin oo u socda inuu aflagaado uu ku suubiyo diinteena kitaabka inuu gubo. ninkan waa wada naqaana waa ninkii tagi jiray Dearborn Michigan. waa nin magaalooyin kala tagay oo isku sheega in uu mataqaana u doodayo Kirishtaanka, laakiin ma aha nin Kirishtaanka u doodaya. waa nin raba inuu qaralaasa ka kiciyo magaalada oo raba inuu dhibaato u keeno. wuxuu yiri City Hall-kan imaanaya, wuxuu yiri xaafadaha Cedar baan imaanaya. ninkan waxaan rabaa message-kan u soo gudbinaya ummadda. waxa kale oo raadinaya waxa waay qas. marka qaskaas yaanan la gelin, ninkan yaan la engage karayn, yaan la hadlin. waxa message-kayguna yahayna waxa jira la dhaho First Amendment. qof walba rights buu leeyahay, wuxuu rabaa inuu ku hadlo Mareykanka. waa xornimo aad dalkan ku leedahay. marka waxaan ku baraarujinayaa dhammaan dadkan, ninkaas yaa attention badan la siinin, yaa waqti la gelin. waxyaalahan uu suubinaya waxa kale oo raadinaya waxa waayo in uu dhibaato ku kiciyo dadka oo reaction buu raadinaya. marka walaalayaal, message-kaas ayaan soo gudbinayaa. annaga waxa naga ballan ah inaan community safety-geeda aan xukuno. shalay waa ka kulanay, darrad waa ka kulanay. waxaan suganay ninkan 17 imaanaya wiilka uu soo hormaray, maantuna nala joogaa. hadda waan la hadlay booliiska, waan la hadlay dhammaan madaxda magaalada Minneapolis. xaafadana we will keep them safe. at the same time, qof walbeeto rightskiisa uu ku protest gareeyana xaq buu u leeyahay. marka message-kaas ayaan soo gudbinayaa. yaana la trigarayn, yaan mataqaana meeshuu rabo inuu noo diro, inuu reaction badan naga sugo. hadduu maanta kitaabka ama diinteena aflagaado uu ku suubiyo, reactionku naga raadinayo yaan la siinin. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ما شاء الله haddaad doonaysaan cunto freesha, haddaad doonaysaan environmental cleaner, aad doonaysaan fadhi wanaag iyo meel aad professionally aad ku soo hiran kartaan shirarka lagu qabsado, la isugu yimaado, lagu bulsheeyo, iyo astaan weyn oo fatuuradaha la dhigan karo. intaba ha moogaanina East Cafe oo ku taala magaalada Minneapolis.